بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلهو بشهر رمضان بركيسن أن كجرنه خير كذا ورن إلهو نسوه ذا آدي إلهو كوي العافيي أو لغدري كوى لغو حورين يا عذابت بشهر رمضان إلهو نقدر اللهم آمين. الله أهل خير كأه soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan xusuusinayaa arrin haddii aan wada samayno saacaddan hadda marka laga bilaabo ilaahay idinkiisa ay sabab u noqon doonto qof kasta oo Soomaali ah oo af Soomaali ku hadlo oo dhegaysanayo meel kasta ay joogaan haddii aan samayno ilaahay idinkiisa dhammaanteena jannada aan ku wada geli doono. xitaa waxaan si gooni ula hadlayaa mucaaradka iyo muxaafidka iyo shacabka iyo qof kasta oo Soomaali ah arrinta haddaan wada samayno qiso caddeen u ah inaan jannada wada gelaynana waa idin sheegi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka hore waxaan horumarinayaa hadduu Ilaahay yiraahdo dhowr su'aalood. ka waran nin adigoo aabba ah ama adigoo hooyo ah gabadha aad ugu jeceshihiin ilmaha aad dhasheen, khaasatan gabadha aad ugu jeceshihiin oo dhoorsanaan markhaati laga yahay idinka iyo xaafadda iyo cid kastoo idin taqaano, akhlaaqda gabadhaasi markhaati laga yahay, af asturnaan iyo dhega asturnaan iyo indha asturnaan, indhaheeda meel ay u dhaaftay gurigeeda aysan jirin, jir asturnaan, qalbigeeda cuqdad aan lahayn, maskax nadiif ah, gabar noocaas oo kale ah oo aad dhashay haddaad aabba tahay ama aad dhashay haddaad hooyo tahay. ka waran haddii qof uu ku been abuurto oo uu yiraahdo way zinaysatay. intaas kaliya ma ahan, warka been abuurkana magaalada uu ku dhex faafiyo oo gabadhii dhowrsaneed oo aad ugu jecleedeen reerka wax arrin aan waxba ka jirin oo been abuur ah ka shaqaynaya qofkaasi xumaanta iyo dhibka uu idin gaarsiiyey weyninkiisa oo haddana qof qaraaba ah oo idiin dhow, maxaad ku samayn lahayd? caqliga insaanka iyo dabeecada insaanka waxaa maaragtay uu samaynaya waxa waye qofkaasi ama inuu iska celiyo ama ama inuu gooyo ama wax walba oo gabadhiisa lagu masabitay uu ku ilaashan karo inuu sameeyo. arrintaas waxay ku dhacday, haddana si kale haddaan u dhiga ka waran su'aal kale, haddii xaaskaagii oo ahayd haween dhoorsoon, xaafadda ay markhaati ka tahay, akhlaaqdeeda magaalada markhaati ka tahay, dhowrsanaanta afkeeda, dhowrsanaanta indhaheeda, dhowrsanaanta dhegaheeda, dhowrsanaanta xubnaheeda, dhowrsanaanta jirkeeda, adiga aad markhaati ka tahay, xaaskaaga, xaafadda ay markhaati ka yihiin, haddii qof aad taqaano oo ardadaada ka mid ah qofkaasi uu faafiyo oo uu dhaho way zinaysatay, ka waran qofkaasi meesha uu kaa taagnaan lahaa? walaalayaal waxaan aan sheegaya waxay dhaceen waqtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam. gabadha lama sabitay oo lagu been abuurtay oo warkeeda lagu faafiyey magaalada inay zinaysatay, magaaladaasna waa Madiina, magaalada labaad Maka kadib xagga khayrka. magaaladaasi Madiina rasuulka calayhi salaam iyo asxaabtiisa ay wada joogaan
ayaa ninkaasi ninbaa wuxuu ku faafiyey dad munaafiqiina ku jirtay laakiin ninkan munaafiq ma ahayn nin iimaankiisu daciifi u ahaa ilaan asxaabta nebigu ka mid ahaa dagaalkii Badr uu ka qayb galay haddana saas ay tahay wuxuu faafiyey xumaanta mid ka mid ah atharu nisaa haweenka ugu dhoorsoon fi lcaalam caalamka oo dhan oo rasuulkana uu ugu jeclaa bacda alkhadiija waa caaisha waaye xadiidu ifki waa maqasheen sheekada been abuurka caaisha inay zinaysatay oo nin la yidhaahdo safwaan ay ka zinaysatay oo markii xaadithadaas sheeko dheer haddana ma gelayo markaasi kadib caaisha oo qalbi xaaran waa tii iyadoo masquul u baxday haweenay wada socdeen gurubay u bixi jireen musqushaan quruxda badan gudaha ku taala guryaheena ma jirin banaankaa loo aadi jiray waa la isweheshan jiray gabaraa la socotay saaxiibteeda ahayd arrinta marka sheekadana way socotay markaas sheekadii way socotay waxaa dhacday gabadhi inay turanturootay iyadoo dhici rabto turanturootay caaisha ay qabatay markaasay waxay leedahay tacisa mustax inkaar ha ku dhacdo mustax ha halaagsamo marka waa walaalkeedii gabadhaasi markaas caaisha waxay dhahday maxaa u inkaaraysaa qof dagaalka Badr ka qayb galay ilaahay uu jeclaaday oo ilaahay uu wada cafiyey oo uu yiri ahlu Badr oo dhan waxaad samaysaan lidima qabanayo sidee hadalkaas u dhihi kartaa markaas waxay dhahday miskiinadaa tahay waxaad la socotay malahan magaalada waxaa ku jirto arrinkaasi markaasay caaisho sheekadii ay maqashay in maaragtay sheekada ah mustax inuu arrintan qayb u ka yahay mustaxna in adeerkeedu ahaa abubakar adeer u ahaa guriga abubakar laga masruufi jiray abubakar nin maalqabeen u ahaa oo ilaahay siiyey fadli abubakarna wuxuu qaas u ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa garanaysaa nabiga suu u jeclaa fiiri familkaasi waa xaaskii rasuulka qoftaas lagu been abuurtay nabigu way garan kartaa marka calayhi salaatu wasalaam suu u gubanayo dhinac kale waa gabadhii uu dhalay ruuxu rasuulka ugu jeclaa afdalu lbashar waxaa la yidhahdaa bacda alambiyaa itlaaqan waa abubakar asidiiq qofkaasi saasaa nabiga calayhi salaam oo saas uu u jeclaa oo ilaa uu yidhi xataa markuu ka sheekeynayay oo maalin fartuu ku fiiqay wuxuu yidhi qof walboo diintan usoo bandhigo dib u gurasho iyo ka feker uu samaynayo ilaa akhi fartuu ku tilmaamay walaalkay maahina markaan islaamkan usoo bandhigay markiiba horuu ka soo galay qalba xaarnaantiisa abuubakarkaasi oo saxaabiga jaliilka ah waa gabadhiisii waaye waa xaaskii rasuulka calayhi salaam nin ayaa masabitay ninkaasi markuu masabitay oo ka mid ahaa dad badanaa masabitay laakiin ninkaasi abubakar ayaa adeer u ahaa abubakar markuu u carooday markaas kadib wuxuu ka jartay macuunadii bil walba uu siin jiray masaariiftii aayad qur-aanna soo degtay markaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay walaa ya'tali ululfadli minkum wassaca niisoo ku dhaaran waay wuu dhaarta abubakar wuxuu dhahay wax dambe oo aan siinayo malaha nin gabadheedii daahirada ahayd nadiifka ahayd dhowrsaneed oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii ahayd umulmu'miniin ahayd heerkaas la gaaray marka ilaahay subxaanahu wa tacaala fiira cafiskasuu u jecel yahay ilaahay wuxuu yidhi walaa ya'tali ululfadli minkum wassaca yuusan dhaaran ululfadli waxaa ilaahay qofka fadli dheeraad siiyey abubakar waaye wasaca dhaqaale taajir milyaneer ahaa intaasoo dhan oo ilaahay subxaana wuxuu leeyahay yaysan ka dhaaran inay wax siiyaan ulil qurba waa qaraabadii waa ilan wiilkaas qaraabuu ahaa walmasaakiin wiilkaasi maskiin ayuu ahaa walmuhaajiriin intaasoo dhan sifuu lahaa markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala aayad qaybta dambe wuxuu yidhi alaa tuxibuuna an yakfira lakum macnaha markaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ma jeceshihiin in ilaahay uu idiin dambi dhaafo macnaa haddaa qofka ana cafisaan ilaahay subxaana wa tacaala abubakar uu ku leeyahay aayaddaas isaga kusoo degtaa layidhi haddaa iska cafisaan oo lacagtii dhaqaalihii aad u dirtaan oo wuxuu sameeyey aad ka cafisaan alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ma waydan jeclayn in ilaahay uu idiin dembi dhaafo balaa uu dhaha abubakar markuu ka jawaabay wallahu gafuuru raxiim balaa uu dhaha ha ilaahu waa jeclaa in lai dembi dhaafo qof walba wuxuu rabaa aakhir inuu tago isagoon dembi lahayn
haddii aakhira aad tagto adoon dembi lahayn ilaahay jannadiis ku geenaya qisa cajiib badan marka oo iscafinta ah oo bisha ramadaan haddaan iscafinno oo qof walba walaalkiisa uu waco mucaaradka uu muxaafadka waco madaxweynaha uu waco madaxweynayaashii hore oo dhaho walaalo bil ramadaan aan ku jirnaa walaalayaalo bishaan aan qaniimo aan fariintan inay gaataan jeclaa insha allah gacan yarihiisa aan u diraya hadduu ilaah raado markaan dhammeeyo aan duubo gacantiisa midig qof ahaan u dirayaa inuu madaxweynaha gaarsiiyo oo asaga markaasi uu u yeero dowlad goboleedyada madaxdoodii wax walba ha dhaceen arrintan waxaan tusaalaha ugu soo qaatay wax weyn waaye in gabadhaada lama sabito oo lagu abuurto been oo daahirad ah oo nebi xaas u ah oo haddana aa cafis wadanaysta marka in laiscafiyo waaye in laiscafiyo haddii wax lagugu sameeyey qiso cajiib badan nabiga calayhi salaam wuxuu ka sheekayey qiso markay bilaabmaysa rasuulku waa murugaysnaa qisada markuu dhammaystirin rasuulka calayhi salaam wuu qosray calayhi salaatu wasalaam qisadaas waxay ahayd nabiga wuxuu ka sheekeeyey 2 nin oo aakhiro la horkeenaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasaa mid wuxuu leeyahay ilaahu ninkan waa i dulmiyey waxaasuu igu sameeyey ninkiina markaasi wuu qirinaya markaas ilaan ilaahay hortiisa been lagama sheegi karo markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ninkii oo wax dulmiyey daalimka ahaa waxaa la leeyahay xasanaadkaaga sii ninka aad dulmisay markaasaa loo ilaahay wax ii hari ma laha wax walba la iga qaaday wax xasanaad ii hari ma laha marka malaa'igtiina way sugaysaa in ilaahay uu amro cadaabta loo kaxeeyo markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la hadlayaa kii madluumka ahaa wuxuu leeyahay ninkii xasanaad uu ku siiyo ma lahan marka maxaad rabtaa xaqna waad leedahay haddii oo adiga aadan cafin waxaa uu tegaya ama uu gelaya cadaabta ilaahay subxaana wa tacaala marka maxaa rabtaa markaas wuxuu dhahay ilaahu sayi'aadkeeda xumaan badanaa ahaayaa macnaa xumaan badan ayaa dhabarka iga saaran ilaa xumaantaas wada qaad dhabarka ka wada saar meesha rasuulku ka murugooday rasuulku wuxuu u murugooday ma aha daalimka inuu taageerayo wuxuu u murugooday qof ummaddiisa ah oo ummatu maxamed ah oo cadaab gelayo wuu naxariis badnaa ra'uufu raxiim sifaadka rasuulka ahayd qofka markuu madax yahay inuu naxariis badnaado inuu dhimriyo inuu cafis badnaado aa loo baahan yahay madax kasta ahaa imaam masjidaan ahay waa madaxnimo guddoomiyaa tahay waa madaxnimo nabadoonaa tahay waa madaxnimo gurigan aabba ka ahay waa madaxnimo hooyada guriga qeybay mas-uul ka tahay waa madaxnimo kullukum mas-uul qof walba waa mas-uul waayo oo wax la weydiinayo markaasaa waxaa dhacday ninkii wuxuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala sayi'aadka haddaan kaa xambaaro horta in lagaa qaado waayo sababtoo ah xaqaad u leedahay in lagaa xambaaro sayi'aadkaasi oo ninkan maadaama wax uu ku siinayo aysan jirin oo isaga dhabarka laga saaro laakiin intaan saas samaynin maadaama aad i amartay sayi'aadkii addoonkaa dhahay sayi'aadkaiga qaad madaxa ka saar qofkaas cadaab hala tago markaas ilaahay wuxuu leeyahay waa ku kaxaynayaaye malaa'igtaa amrayaaye waxbaa lagu soo tusinayaa malaa'igtaa kaxaynayso ninkii oo madluumka ah ee la dulmiyey dadka madluumiinta ah waxaan ugu bishaaraynayaa xaaladaada fiiri ninka marka la kaxeeyo malaa'igtaa kaxaynayso jannada la geynaya albaabka keliya loo furayaa albaabka istaag fiiriyaa la leeyahay markaas wuxuu arkayaa adduunyo oo janno ah oo laga dhex shaqaynayo oo qurux badan wax walboo bini aadan u baahan dhan ay dhex yaalaan markaasaa malaa'igtuu u jeesanaya su'aaluu weydiinaya wuxuu leeyahay ambiye maa meeshaan leh ambiyada maa loogu talagalay waxay leeyihiin maya markaasaa wuxuu weydiinaya su'aal kale dadka shuhadada ah oo diinta ilaahay iyagoo faafinayo ama difaacayo u dhintay maa loogu talagalay meeshaan jannadan weyn maya markaas waxay leeyihiin yaa loogu talagalay markaasaa waxay leeyihin malaa'igtii ilaahay wuxuu noo sheegay adiga in lagugu talagalay haddii aad cafiso walaalkaa ile ninkiyaa meesha u taagan oo sugayo cadaab u socdo markaasuu leeyahay cafawtu canhu
cafawta canhu wax janaa laguu sheegay marka maxaa sugaysaa marka markaasaa malaa'igtu way soo celinayaan waxay leeyihin ilaahu wuu cafiyey walaalkiisi markaasa ilaahay wuxuu leeyahay walaalka aad cafisay gacanta qabo jannada isla gala allahu akbar jannada isla gala waa walaalkiisii uu cafiyey soomaaliyay ka waran marka soomaali walaalo ah soomaali hal ah soomaali isla dhalatay maanta in aan isku guulguulno dagaal soo kama fiicna inaan iscafinno oo hal la wada noqdo oo gacmaha anagoo ishaysana ilaahay uu dhaho kuwan waa iscafiyeene oo ilaahay uuna dhaho oo nebi maxamed uu nagu farxo oo uu dhaho alxamdulilaah oo ilaahay subxana wataala laakiin hadda in la iscafiyo waa culummadana waxay dhaheen walcafwu cafisku wuxuu fiican yahay cinda almaqdira markaa qofka awood u leedana wax ku samayn karto inaad cafiso abubakar markuu cafinaya qofkaasi abubakar awood u lahaa kuwa wuxuu awood u lahaa in dhaqaalaha inuu ka jaro wuxuu awood u lahaa nabiga maaragtay calayhi salaatu wasalaam inuu maaragtay uusan cafin oo u sheego gabadhiis inuusan maaragtay wixii lagu soo inuusan ka cafinayn laakiin cafwiga wuxuu ku fiican yahay cinda almaqdira markii qofku uu kari karo inuu qof wax ku sameeyo marka hadda in la iscafiyo intaan aakhire la gaarin aan xusuusinaya nafteyda aniga qof kasto oo allahu aclam kolay dadkani ma kala garanayo laakiin qof walbo cafisuu iga yahay anna qof walba cafisaan weydiisanaya aan sidaas isdhahno maalinta qiyaamaha haddaan saan ku dhimanno annagoo bil ramadaan ku jirno ilaahay subxaanahu watacaala inuu na cafiyo waxaan kusoo gabagabaynayaa ilahay qur-aanka wuxuu leeyahay waalkaadimiina alghayth waa kuwa caradooda kontaroola dadka qaarkood markay caroodaan hadalla aan ficnayna ka soo baxa ama way caaytamaan ama gacantooda hadasho gacan ka hadal marka waalkaadimiin waxaa kuwa cishada wax caraday xakameynayaan waalkaadimiina alghayth waalcaafiina can innaas dadkana iska cafinayaan markaan iscafinno aquulu qowlii hada waastaqfir lii walakum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu